السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qaybka Itoobiya oo ku soo xadgudubta madax banaanida Soomaaliya iyo ciidamadeeda oo gudaha u soo galay Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo si weyn uga carooday tilaabada Itoobiya saraakiisha ciidamadana amar degdeg ah siiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo wacad ku mareynay la xisaabtami doonaan dawladaha faragelinta ku haya Soomaaliya dawladda dalka Kenya oo sheegtay in dawladnimada Soomaaliya ay garab istaagi doonto xilli dandaansi ay ku hayso dawladda Itoobiya iyo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiyay dawladda federaalka Soomaaliya sheegana inay ka hortagi doonaan Itoobiya faragelinta ay ku hayso dawladnimada dalka qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato hamogaan subscribe saarto YouTube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida ciidamada dalka Itoobiya ayaa safar sharci darro gudaha ugu soo galay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay ku soo galeen xuduudka Soomaaliya iyagoo wax fasax ka haysan dawladda dhexe boqolaal ka tirsan ciidamada dawladda Itoobiya oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inay gudaha u soo galeen qaybo ka mid ah gudaha dalka gaar ahaan gobolka Gedo ciidamada waxa la sheegay inay fariisimo cusub ka sameysteen garoonka diyaaradaha degmada Doolow iyo deegaano kale oo ka tirsan dhinaca xuduudka sida degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi maamulka gobolka Gedo ee horey u magacaabay madaxweynihii horeete ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Itoobiya iyo maamulka gobolka Gedo ay yeesheen xiriir iskaashi oo dhinaca ammaanka afayeen u hadlay maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay si awood ah ku soo galeen xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya taas oo uu sheegay inay qayb ka tahay iskaashi dhexmaraya gobolka Gedo iyo dawladda Itoobiya war la yaab leh ayay ku noqotay shacabka Soomaaliyeed in la yiraahdo dawladda Itoobiya ayaa safar sharci darro ciidamadeeda ku soo gelisay gudaha dalka iyadoo xiriir la samaysanaysa gobol ka tirsan dalkeena isla markaasna aan wax fasax ka doonayn dawladda dhexe ciidamada Itoobiya waxa la sheegay inay xadgudub ku yihiin dawladnimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa la aaminsan yahay soo gelitaanka ciidamada dalka Itoobiya ee gobolka Gedo inuu qayb weyn ka qaadanayo madaxweynihii horeete ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka gobolka Gedo oo asagoo horey u magacaabana waxay sheegeen in ciidamadu ay ku soo galeen ogolaansho ay ka haystaan maamulka gobolka Gedo howlgallo lagu baacsanayo al-shabaab ayay sheegeen inay bilaabayaan balse arrintan ayaa loo arkaa mid cadaadis lagu saarayo madaxda sare ee dalka ciidamada Itoobiya durbaba waxay dhaqdhaqaaqyo sidoo kale ka bilaabeen gobolada Bay iyo Bakool iyo Hiiraan waxaana taasi la sheegay inay tahay qorshe dawladda Itoobiya ay ku doonayso inay hoos ugu dhigto saameynta dawladnimada Soomaaliya iyadoo doonaysa inay gobollo u kala qaybiso dhawaan hogaamiyaasha dawlad goboleedyada ayaa looga yeeray qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka Itoobiya madaxweyne Laftigareen oo diyaarad lagu qaaday ayaa la geeyay magaalada Addis Ababa sidoo kale tan madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Galmudug ayaa haysta martiqaad ka yimid Abiy Ahmed waa tilaabo qarannimada ka soo horjeeda lana doonayo in dawladnimada Soomaaliya lagu burburiyo ayuu yiri mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo arrintan ka hadlayay dhankiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inuu si weyn uga carooday tilaabada dawladda Itoobiya ay ku doonayso inay faragelin ugu sameyso arrimaha gudaha Soomaaliya Itoobiya waxa la ogaaday inay hub sharci darro u qaybinayso dawlad goboleedyada kuwaas oo ay ku hubeynayso inay ka hortagaan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu iskugu wacay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo kuwa sirdoonka oo uu kala hadlay xaaladda guud ee dalka iyo in ciidamadu markasta ay heegan u noqdaan sidii u difaaci lahaayeen qarannimada Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la hadlay taliyaasha ciidamada qaranka wuxuuna u sheegay inay muhiim tahay inay muujiyaan foojignaan dheeriya maadaama difaacitaanka qarannimada Soomaaliya ay tahay wadada ugu muhiimsan dawladnimada in la difaaco dawladnimada lagana hortago wadamada cadawga ee doonaya inay dalka faragelinta qaawan ku sameeyaan waa muhiimada koobaad ee qarannimada ay leedahay waxaana doonaynaa ciidamadeenu inay noqdaan kuwa sare u qaada hamigooda iyo difaaca dawladnimada
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka duulaya daandaansiga dowladda Itoobiya iyo siday u doonayso inay dowladnimada Soomaaliya hoos u dhigto ayaa booqday taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed asagoo kula hadlay saraakiisha qaybahooda kala duwan dhageystana warbixin ku saabsan habka ay u shaqeynayaan ciidamada ammaanka gaar ahaan taliska boolisku madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah taliyaha guud ee ciidamada qaranka ayaa kormeeray ciidamada booliska Soomaaliyeed xarumaha ay ku shaqeeyaan waxuna faray inay qayb ka qaataan difaacitaanka dowladnimada madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in dowladda cusub ee uu hogaaminayo ay istiraatiijiyadda la dagaalanka argagixisada iyo ciribtirka ay ka leedahay hadaf guud iyadoo sidoo kale laga hortagayo cid walba oo loo arko inay ka soo horjeedo nidaamka dowladnimada Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa si cad u sheegay in dowladda Itoobiya ay duulaan cad ku soo qaaday Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in marka hore uu diyaarinayo hay'adihiisa ammaanka kadibna ay bixi doonto dowladda Soomaaliya jawaabta ugu habboon oo ku aadan qaabka looga hortagayo dowladda wadanka Itoobiya waxaa laga soo wariyay inay doonayso in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isku horkeento iyadoo qarannimada Soomaaliya meel uga dhacaysa doonaysana inay ka hortagto in dalka Soomaaliya uu yeesho dowlad ay ku mideysan yihiin dadkeeda iyo sidoo kale madaxdeeda oo wada shaqeynaya Itoobiya mar walba waxa ay ka doontaa oo ay door bidaysaa inaysan Soomaaliya horumar gaarin waxayna fuushanaysaa danaheeda gaarka ah hogaamiyaha u tartamaya xilka madaxweynaha dalka Kenya horena uu ahaa hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa shaaca ka qaaday in dowladnimada Soomaaliya ay garab taagan yihiin Raila Odinga ayaa ballan qaaday in haddii uu guuleysto xilka madaxweynaha bilaha soo socda uu diyaar u yahay inuu garab istaago dowladnimada Soomaaliya iyadoo Kenya qayb ka qaadan doonto sidii Soomaaliya looga difaaci lahaa wadamada cadawga ku ah iyo sidoo kale kooxaha kale ee nabadgelyada Soomaaliya lidiga ku ah hogaamiyaha mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha dalka Kenya Raila Odinga waxa uu sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin dalal walaalo ah muddo badan saaxiibo ah asagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono iskaashiga dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya Raila Odinga waxaa la soo warinayaa in dad badan ay rajo ka qabaan inuu noqon doono madaxweynaha hogaamin doona wadankaasi Kenya sanadaha soo socda iyadoo si weyn ololihiisa looga dareemayo gobolada kala duwan ee gudaha wadankaasi Kenya dowladda wadanka Kenya ayaa dhawaan heshiis la gashay Soomaaliya heshiiskii ayaa qodobkii ugu horeeyay Kenya dhaqan gelisay kaas oo ahaa in la fududeeyo fiisaha dalku galka ee Kenya lagu aadayo dadka Soomaaliyeed ayaa dhawaan waxa u suurta gashay inay si fudud ku tagaan wadanka Kenya isla markaasna ay socdaaladooda loo fududeeyo iyadoo fiisaha dalku galkaasi Kenya ay fududeysay arrintan ayaa loo arkaa mid xal u ah isku socodka wadamada Soomaaliya iyo Kenya Raila Odinga waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xoojiyo wada shaqeynta Soomaaliya iyo Kenya haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in ay xukuumadda Somaliland isku dayayso inay awood ciidan u adeegsato doodbaxyada nabadgelyada ay doonayaan inay ka dhigaan gudaha Somaliland xildhibaanada mucaaradka oo shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay diyaarsatay ciidamo fara badan oo ay doonayso inay ku caburiso mucaaradka ciidamada waxaa la sheegay in dhammaan laga howlgelinayo gobolada iyo magaalooyinka muhiimka ah ee Somaliland si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqyada ka imaanaya dhinaca mucaaradku waxay ka gadoodsan yihiin in doorashada November dib uga dhacdo waxayna doonayaan in doorashada la qabto halka xukuumaduna ay ku andacoonayso in doorashada madaxtinimada ay ka soo horeyso in la furo ururada siyaasadda Somaliland waxaa suurtagal ah in gacan ka hadallo iyo rabshado ay ka dhacaan gudaha Somaliland haddii aysan jirin wax xal ah oo dhinacyadu ay gaaraan siday aaminsan yihiin qaar ka mid ah xildhibaanayaasha arrimaha amniga iyo xasiloonida warkaad ka daawanayseen dunida TV waageynta sidaas nabadgelyo